السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkaygi walaashayda daacadahay adiga ayaan ku sidaa dhiirigelintan dadka maanta jooga intooda badan hadaa u tahay daacad waxay ku arkayaan inaad tahay doqon haddii aad iska aamusto waxay ku arkayaan inay islaamnimo kula jirto haddii aad saaxiibtinimo u muujiso waxay ku arkayaan inaad dangaar leedahay haddii aad runta kala hadashid waxay ku arkayaan inay ayaga kula hadlaysid haddii aad sida ayaga ii rabaan aad u samaysid waxay ku arkayaan inaad tahay xaasad haddii aad wanaag badan u samaysid waxay ku qabanayaan hal qalad oo ayaga aad ka gashay haddii aad si degan uga hadasho si tartiibna aad u socdo waxay ku dhahayaan maxaa waay waxaan jilicsan haddii aad samafal u samayso miskiinka waxay ku dhahayaan waa tuug oo wuxuu raadinayaa si uu ku qaato ka fogow dadka aan weligood qaladkooda garan doonin had iyo jeer ku dareensiiya qaladkaaga mooye ogow xaalad walba kula soo daristo ha iska lumin rajada waayo marka ay qoraxda dhacdo xidigaha ayaa soo baxda